shumaca TikTok iyo atriishada masaarida ayaa lagu naanaysaa Haniin Xusaan. Dowladda Masar ayaa ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah. Ma ogtahay inay bil walba $3,000 ka sameyn jirtay aaladda TikTok? Mase la socotaa inay gudoomiye u ahayd gabdho soo duuba muuqaalo anshax xumo ah? Sidee ayay shirkadda TikTok uga dalbatay inay soo duubaan jirkooda iyagoo qaawan si ay lacag u helaan? su'aalahaas iyo kuwa kale si aad jawaabahooda u hesho, like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, sina faafi muuqaalkan. Mahadsanid. Haniin Xusaan waa gabar 22 jir ah oo u dhalatay dalka Masar. Waxay caan ka tahay barta TikTok, waana gabar qurux badan oo leh jilin cajiib ah oo dhalinyaradu ay jecleystaan. Qoobka ciyaarka ashqaraarka leh ee ay la wadaagto fanaanada Carbeed ee Amaana Iswiisi, furfurnaanta iyo farxadda ay qaybta u heshay oo ay ku soo bandhigto degalkeeda ayay ku kasbatay ku dhawaad 1 milyan oo taageerayaal ah. Haniin Xusaan ayaa dhiganaysay jaamacadda Qaahira markaasoo ay abaabushay gabdho 18 jiro ka waaweyn oo aaladda TikTok ku baahiya muuqaalo anshax xumo ah. Waxaa lagu soo eedeeyay inay abuurtay group WhatsApp oo ay gabdhaha ka qaadi jirtay muuqaalo qaawanaan ah oo niikada lagula jaanqaadayo muusiga. Waaxda dacwad oogidda ee dowladda Masar ayaa gabdhaha ku eedeysay dambiyo ay ka mid yihiin ku xadgudubka anshaxa qoysaska, midka diinta iyo dhaqanka bulshada Masar, iyo inay ka qayb galeen baahinta, soo banbixinta iyo dhiirigelinta gabdhaha asturan ee guryaha jooga. Kooxda gabdhaha ah ee ay hogaamiso Haniin Xusaan waxaa loo haystaa inay shirkadda TikTok lacag kaga bedesheen muuqaalada anshax xumada ah ee ay soo bandhigaan, iyagoo loo ballan qaaday lacago kale haddii ay kordhaan dadka ku xiran bogagooda. Markii ugu horeysay dabayaaqadii bishii Abriil ee sanadkan ayay booliisku xabsiga dhigeen Haniin Xusaan, markaas oo ay ahayd xidig warbaahinta Masar ay ku naanaystay gabadha TikTok. Waaxda dacwad oogidda Qaahira ayaa Haniin Xusaan ka soo qabatay jaamacadda Qaahira oo ay dhiganaysay. Waxay xilligaa daba socdeen muuqaal ay soo duubtay oo ay dhigtay barteeda TikTok oo ay gabdhaha ku weydiisanaysay inay muuqaal isaga soo duubaan iyagoo jooga guryahooda, kadibna lacag looga bedelan doono. Madaxweynaha jaamacadda Qaahira, Maxamed Cusmaan Al-Khashti, wuxuu sheegay in ciqaabta gabadhaasi go'aan laga gaari doono ilaa xilliga ugu dambeeya ee casharadeeda. Muddo bil ah oo gal dacwadeedka Haniin Xusaan uu ka furaa maxkamad ku taala dalka Masar, waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah, halka garka loo geliyay ganaax lacageed oo gaaraya $13,000. 3 gabdhood oo kale ayaa iyagana lagu xukumay min $13,000 oo ganaaxa inay mid kasta bixiso, waxaana dhammaantood lagu helay dambi ah ka ganacsiga muuqaalada haweenka. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al